الحمد لله رب العالمين. magaalada Baraawe dagaal xoog leh ayaa ka socdo. dagaalkaasna waxa soo abaabulay Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisi. horeyna waan ugu hadlay gobolka Shabeellaha Hoose duulaan ayaa lagu yahay. maleeshiyaadkan saaka waxay damceen in magaalada Baraawe dhaxdeedii isbaara ay dhigtaan oo sidii waagii hore ay ummadda ula dhaqmi jireen inay ula dhaqmaan magaalada Baraawe. arrintaas ayada ah waxaa diiday shacabka deegaanka iyo ciidanka deegaanka sida gaarka u tababaran ay leedahay koonfur galbeed ayaa dhagta dhiig u daray. waa soo dhaweynayna. horey baan u sheegay aniga waana ka hadlay. beeshan walaalaha habargidirna waan u sheegay. cid allaale ciddii ay tuku ku sitaan waan u sheegay. digilka tiqiineen ma ahan digilkii aad garan jirteen oo wixii la doono ama digilkii tanaasuli jiray oo hantidiis la boobi jiray dhibaato kasta loo geysan jiray ma ahan digilka waqtigan joogo gobolka Shabeellaha Hoose. xaqiiqdii meesha iyada waxaa lagu dilay kooxda maleeshiyaadka ninkii watay oo la dhihi jiray Suusac iyo 7 nin oo kale la socotay. meydkoodii bannaanka ayuu yaallaa. aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynayaa. qaadi u dariiq buu ahaa, ahlunaar buu ahaa, daalim buu ahaa. wuxuu ku dhintay asagoo qaadicu dariiqnimo ah. waa arrin wanaagsan oo runtii dhagaha shacabka reer koonfur galbeed u wanaagsan waay. xaqiiqdii waa soo dhaweynaynaa. ilaahayna uma naxariisnaa insha allahu tacaala. maxaa yeelay daalim buu ahaa. sidoo kale 7 nin oo la dhimatay oo asaga khalday waxaan leenahay cudurdaar bay leeyihiin oo dad la khalday inay yihiin baa laga yaabaa. waxaan leenahay bulshadii ay ka soo jeedeen sabir iyo iimaan Allah ka siiyo. waxaan leeyahay dhul adiga aadan lahayn inaad ku dhimato waa ahlunaarnimo. xaqiiqdii ninkan hadda la dilay waxaa adeer u abaalir Xasan Sheekh Maxamuud. Suusac ayaa la yiraahdaa. waa nin caan ah oday ah oo maleeshiyaadka Xasan Sheekh Maxamuud ka amar qaata ah. rabo inuu gobolkan isku ballaariyo oo bartay gobolkan horay inuu boob iyo dhibaato ugu geysto. marka arrintaas ayada runtii ciidanka sida gaarka u tababaran koonfur galbeed ay leedahay iyo dadka deegaanka ah way diideen. Baraawe ma ahan meesha la yiraahdo Haradheer. Baraawe ma ahan Gelansoor. Baraawe ma ahan Gaalkacyo. Baraawe ma ahan xaqiiqdii Baraawe waxa waaye ma ahan meesha la yiraahdo Gurceel ma ahan. waxaan leeyahay waad fashilintihiin waadna runtii halaag baad ku socotaan. xaqiiqdii waxaan rabaa shacabka reer Baraawe inaan la hadlo, dadka Baraawe ku nool inaan la hadlo. miyaha weedaan afkay ku nooshay maanta cidda awoodii waagii hore iyo ma hayso mana dagaalami karto. xogteedoo dhan anaa og. sidaas isika daran bay ducafo u yihiin sida maanta aad u gasheen. wallaahi oo billaahi tallaahi shaatiga xunka hadda dowladnimada qaarkood ay wataan ku soo duulay bay wax ku yihiin mooyee wax ay yihiin haba yaraatee ma lahan. qoryahooda biyaha ka dhaco markii la joogo deegaan aan ayaga lahayn xaqdahay ku socdaan. qof allaale qofkii Baraawe deegaankaas ka soo jeedo meesha ku dhinto waa ahlu jinno. waa ahlu jinno. qof allaale qofkii ay dilaan waa ahlu jinno. waa mujaahid. waa nin runtii ku dhintay xaq ku dhintay. xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam baana ku cad man qutila duuna maali fahuwa shahiid. man qutila duuna maali فهو شهيد. نبي غير عليه الصلاة والسلام. قف الله لقفك كل أنت وشهداء وشهيد.
ilaa hadda wararkii u dambeeyay aan helnay waxay leeyihiin waxay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka xiriir aan la samaynay maleeshiyaadka miidkoodii bacaad ku dhex yaallaa ninkii daalimka ahaa watay miidkiisi bannaanku yaalla xaqiiqdii 3 gaari 3 baabuurna waa laga qabsaday 3 baabuur mid ka mid ah waa la gubay 7 baa lagu dhuftay baa la yidhi damac waxaa kaga jiray in madaxtooyada koonfur galbeed ay gacanta ku dhigaan xaqiiqdii miid fara badan iyo dhaawac fara badan bay ka dhaxleen waan ugu digayaa mar labaad baan leeyahay dhagihiina fura war dadka deegaanku sidaad ogeydeen ma ahan dadku dadkii ma ahan deegaanku deegaankii ma ahan dhulku waa la kala leeyahay ey dhintay baa tahay fadlan dhulaadan adiga lahayn ha ku dhimanine waxaan ku leeyahay yaa intay goori goor tahay deegaankaagii garo mii fahamti meeshaas ayada ma ahan masagawaay ma ahan meeshaas ma ahan xaradheer meeshaas ma ahan meesha la yidhaahdo baashi muxuu ahaa warsheekh ma ahan nimanka reexididkayga oon aad ku jeclay baan la hadli caqligiina waagi hor wuu shaqayn jiray reexididkaygii baalweynta abgaal yacni muxuu ahaa runtii meelaan ayaga dhul aan ayaga lahaynoo ku dhintay waa markii ugu horraysay waay nin yacni isbaara raadinaayo oo meeshaas ah oo dhibaato geysanaayo waxaan hore laydinku aqoonin waay wakhtigii cali mahdi waa soo marnay wakhtigii alxaaji muuse suuday waa soo marnay laydinkuma aqoonin mooryaannimo indhacadeeg tuugannimo waxaadan adiga xaqu lahayn raadinta laydinkuma aqoonin laakiin xasan sheekh maxamuud naar buu idin wadaa xaqiiqdii jahannamo ayuu idin wadaa xasan sheekh maxamuud ha ka yeelin mii fahamti lafiin wax u tura deegaankaas deegaan dadkiisii dadkii hore ma ahan dadka meesha joogo kuwa taqiineen ma ahan mii fahamti marka waxaan leeyahay dad aqli badan baad haydeene yaan laydin khaldin meeshaan walaalaha habar gidir waran dhiigle bay wadataa iyada horey bay waran dhiigle u wadatay yaysan lafiina ku qamaarin waxaan leeyahay haddii meesha ciidan dawladeed ahaan ku joogtaanna xaryaad leedihiin xaryihii aad lahaydeen dib ugu laabto mooryaan iyo indhacadays iyo tuugnimo hadday xaaladda noqoto haddii wixii maanta idinku dhacay tusaale idinku filnaato mii fahamti wixii maanta idinku dhacay tusaale idinku filnaato gurmudka degdeg hadda soo gaaray magaalada Baraawan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciidamada sida gaarka u tababaran ee hadda la keenay dayuuradaha amisoomta soo daad gureeyay ee magaalada Baraawan la keenay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo laga soo qaaday magaalada Beledoogle nimankii la dhihi jiray Alfa Group waan soo dhaweynaya qof walbo ilaan dawladdan dawlad qabiil waay dawladda Cabdi Sheekh Maxamuud waa qabiil kasta marka waxa waaye inuu qabiilkiisii daneeyo difaaco xaq buu leeyahay waa soo dhaweynayna ciidamadii hadda ka hor Gurceel meesha la yiraahdo Dhuuse Mareeb Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir loo adeegsaday in Baraawo la geeyo waan soo dhaweynayna in ciidankaas Baraawo ay tagaan oo saacaddan haddaan taaganahay dad gureentooda ay socoto waa soo dhaweynayna meesha dawlad kama jirto nin walba qabiilkiisa difaacdo yaa nin walba qabiilkiisii ha difaacdo maxaa yeelay wax wanaag oo dalkan ka soo socdo wax wanaag ah oo Soomaaliya ka soo socdo haba yaraatee ma jirto Soomaaliya waa u dhamaatay qabiil in la isu laayo oo hadduu Ilaahay ku idmay maadaama ciidamadii mushaaraadkoodii wax walba lagu istaagay dalkii tuugu gaan gashay xasan sheekh maxamuud dhul balaarsi buu wadaa waxaa damac kaga jiro magaaladan Baraawo iyo ceelashii shidaalka meesha yaalay hadda dad baa meesha Ilaahay ku abuuray qof walba dhulkiisa isaga iska leh marka waxa waa meesha iyada ah waxaa ka horeyso neef fara badan inay go'do qofkii damac kaga jiro gobolka Shabeellaha Hoose qofkii damac kaga jiro naf badan inay go'do ayaa ka horeyso waxaan leeyahay dadka deegaanka ciidamadiinii garab istaaga xaq u dirirka ah ee difaaca koonfur galbeed ah ee waqtigan xaadirka ah deegaankaas Ilaahay u soo diray
oo hadduu ilaahay ku idmahayo meel maanta ad u laabataan haba yaraatee ma jirto mii fahamte xaaladdu haddii sidan ay ku socoto waxaan soo jeedinayaa deegaanka ha laga xoreeyo deegaanka in lagu xoreeyo canaasiir kasto oo duulaan ah oo damac xun leh oo doqon ah oo aan ilaahay aqoonin in deegaanka lagu xoreeyo waa laga maarmaan waa aad iyo aad baan runtii u soo dhawaynayaa daraad baan arrintan ka hadlay xaaladda noocan inay soo socotona horeyaan u sheegay bilooyin ka hor baan sheegay waan ka hadlay marka waxaan leeyahay ha la isku tashado dadka deegaanka shacabka ah ciidanka la garab istaaga heel iyo hoo iyo wax walbo maleeshiyaadka xasan sheekh maxamuud soo diray xasan sheekh maxamuud madaxweyne Soomaaliyeed ma ahan waa cadow Soomaaliyeed waa inaad insha Allah ta'ala sida yani ugu dhaqsiyaha badan deegaanka looga sifeeyaa deegaanku u noqdo deegaan dad leh deegaanku inuu noqdo deegaan dadkiisii nool oo ay joogaan inay noqdaan baa loo baahan yahay qurbo joogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda degmadaas Baraawe waxaan leeyahay insha Allah ta'ala bal ha loo diyaar garow deegaanka in la difaaco laga hortago canaasiir kasta weerar ah oo deegaankaas weerar ku soo qaado in la difaaco hal isku dayo ilaa haddeertaan dhimashada maleeshiyaadku waa 7 ciidamada aad iyo aad baad umahadsantiin insha allahu tacaala dhimashada maleeshiyaadku waa 7 3 gaari hal gaari waa laga gubay 2 gaarina waa laga qabsaday marka waa runtii arrin wanaagsan oo dhagaha u roono farxad leh waaye waxaan leeyahay insha allahu tacaala guulaysta ciidamada koonfur galbeed iyo gurmudkoodii haddeertan meesha ku wajahan ciidanka sida gaarka u tabana ee gaashaan group meeshayda in la geeyo waa dhulkii loo tababaray waa gaashaan group iyo hadduu ilaahay ku idmahayo iyo alfa group iyo waa dadka deegaankaas iskale deegaankaas ay ka soo wada jeedaan dhammaantoodii hatagaan meesha ayada insha allahu taala sida ugu dhaqsiyaha badan maleeshiyaadka ilaa magaalada laga saaro yaan laga dabaharin insha allahu taala haddayba maleeshiyaadnimaba ay ku socdaan dee wax wanaagan oo dhexyaal haba yaraatee ma jirto aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu